labadii keliyooda maqan madaxna misaara loo faasa loogu dhuftay inta aysan kala bixin xubnintiisa muhiimka ah ee kaliyaha waxa ay madaxa uga dhufteen miishaar halis ah cunugan oo dhowr jir ah ayaa waxa la waayay muddo 15 bari ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Buule Eelay iyadoo la raadinayay muddo 15 maalmood ah arrintii mucjisada lahayd ee lagu arkay meydkiisa sidoo kale dadkii meesha isugu yimaaday oo hadal hayn badan arrintan ay ka dhalisay waxaan kula wadaagi doonaa raggii markaasi ninkan maskiinka ah ee markaasi cunuga yar markaasi kala baxay kaliyaha oo haatan gacanta lagu hayo hadaladii ay dhaheen iyo sidoo kale aabaha dhalay cunugan oo sir badan ka shifay haddaba saaxiibayaal muuqaalkan like fara badan saar si bulshooyinka Soomaaliyeed u gaaro ay nagu duceeyaan qoyskan sidoo kale qoyskan aynu la raadino xuquuqdooda maadaama cunugooda raggii dilay gacanta lagu hayo iminka muuqaalkan like fara badan saar saaxiibayaal si uu meel fog u gaaro haddii ay tahay markii kugu horeysana soo boqoto YouTube-kana subscribe saar gambalelkana fara ku mahadsanid aynu ku bilownay Saabir Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr sano jir ah ayaa la weysanaa muddo 15 bari ah waxaana ugu dambeyn meydkiisa laga helay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodan xaafadda Buule Eelay waxaana markaasi aabihiis uu meydkiisa ku arkay arrin mucjiso ah waa kan aabihiis oo sharaxaya wax walba oo goobta ku arkay cunugan wuxuu lumay waa sabtigii hadda aan soo dhaafanay sabtigii 15 bari maqnaay maanta 16 ku tahay cunugii adiga intaas markuu maqnaay intaas aan raadinay cunugii maanta ciyaanteeda aniga hadda ma toosin karaa si lama filaan cunugii loo galay marka kulley macnaa dargaas wixii ilaahay waa wixii qornaay ee dhaceen cunugii xubniis wuxuu maqan labadii keliyooda maqan intaas maqan madaxna misaara loo faasa loogu dhuftay meesha laga halay waa CAD digfeer geeskis asoo meyd oo lugta macnaa koronto u xiran tahay 5 jir ahay xaafadu waa bari dhanka otoota kulmay aabaha dhalay cunugan ayaa inoo sheegay in laamaha ammaanku gaar ahaan CID-du ay haatan gacanta ku hayaan laba ruux oo wiilka meydkiisa cusbitaal ka keenay waxa ayna sheegay in labadaasi wiil gacanta lagu hayo waxa uu sheegay aabuhu in dawladda federaalka Soomaaliya uu ka codsanay in si degdeg ah cadaalad loo horkeeno dambiilayaashii falkan argagax la geystay mumkin hadda ilaa ayaan hadda ma arkin waa la qabtay leeyahay oo CID-da cunugaada macna meydkiisa la anoo maana dargaas ay joogsiinay isgooskiisay joog intaas maqlay markaan imaadeen macna si lama filaan ay wiliga aan arkin 45 sano jira aan ku arkay waa nimanka meydka keenay la sheegay dawladdu waxaan ku dalbanaa in cunugaasi macna dargaas oo baaratin dadaal weyn aan ka dalbanaa in macna dargaas meel badan aan ku tuhumayo cunugeyga macnaa dargaas cunugay 500 cunuga meesha joogeen waa iskoolka Maxamuud Mir maalin walba baloona laga ciyaara waa meel dad badan oo mujtamaca waay cunugay calaamad su'aal ma saarnaan kulli qof xaasid ee meesha ku wada cunugan saa u galay in si aad iyo aad macnaa cunug leeg baaran rabaa dhacdooyinka noocaan ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya walina lama oga cidda rasmiga ah ee ka dambaysa falalkan argagax leh ee ku soo badanaya Muqdisho iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka dhacdooyinkan iyo kuwa la mid ah ayaa maalmihii dambe lagu arkay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya walow aynu xiriir la sameynay laamaha ammaanka gaar ahaan laanta CID-du inay ma suurtagelin wax baaritaan ama dheeraad ah ay noo siiyaan xog ahaana magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa dul hooganaya eedeymo badan iyo sidoo kale tacdiyo ka dhan ah xuquuqda insaanka iyadoo maalmihii ugu dambeeyay boqolaal caruur dhalinyaro ah lagala baxay beerkii kaliyaha dhacdo argagax leh ayaa isbuuc dhaweyd ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii hooyo qaadwala ah gabar ay dhashay oo 17 sano jir ah oo markaas ka soo baxday mid ka mid iskuulada secondary ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ama dugsiyada sare iskuulada loo yaqaano gaari nooha ah ama baraba ki soo ordaysa ay markaasi si qaadatay oo ay la carartay gabadha oo markaasi lama yirdoorsoomay sankana loogu tiray barafoon ayaa waxa la geeyay goob baadiye cidla oo aysan garanayn waxaana markaasi rag dhalinyaro ah oo markaasi ay sheegtay qiyaastii inay da'doodu tahay 30 sano ilaa 40 sano oo markaasi gashan dhaqaatiirta qalabkooda gloves iyo sidoo kale face mask ay jirkeeda xubin u talaaleen sidoo kalena waxa ay baareen dhiigeeda iyadoo markaasina dhiigeeda ay markaasi aysan ku qancin